salaan buuxdo aadna idin keenaya kooxaheen oo dhan oo Buulburti joogi jiray iyo Mark Erikson iyo kulli dadka ay joogi jireen marka magacaygu waa Paul Marino ama naanas ahaan geedi raagi Roble ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa alla ugu naxariisto hay ma agtiya miya marka kalkaali caafimaad baan ahay doctor miihi waxaan dad badan markay rag arkeen oo caafimaad ka shaqeynayaan waxay yiraahdeen war doctor aniga doctor miihi markaas waxaan dhahayaa nin xil qaada eed qaad taas maraba shaqadeeda aan jecelahay kalkaali caafimaad baan ahay xaaskaygana Shamso kalkaali oo kale oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulburti aan ka shaqeyn jirnay waqtigii 86 iyo 89 oo mar hore ahayd runtii haddii aan ka fakiray anigoo 26 sano baan ahaa markaan tagnay aruur ma lahayn waqtigaas hadda 56 baan ahay awowna waan ahay iyo ayeeyo Shamso marka waqtigu wuu ordayaa marka hadda waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Hennepin daktarada ayaan la shaqeeyaa ayada takhasuskeedii waa ayada qaybta lafaha takhasuskeedii waa gacmaha in la qaliyo iyo marmar dadka Soomaali way igu yimaadeen oo marka mahmaa Soomaali ah u sheegay waxa uu sheegay ogow lugta waa la dhibaa gacanta waa la dhooraa ishi waa la dheefsadaa oo markaasay ku yireen waryaa ku baray waa cilmigii Soomaaliya maqli jiray laakiin intaan bilaabay horta waxaan arkay waftigii iyo daktarado iyo dad oo reer Buulburti oo dhab ah oo run ah anigana nin Mareykan aan ahay oo 3 sano bis baan joogay waxaan u malaynayaa sidii mahmaa Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda marka laakiin runtii aad iyo aad dadka Soomaali way noo soo dhaweyn jireen marka oo marmar waxaan ka yaabay laakiin ma taqaan anoo isbitaalka joogay dadka markay u yimaadeen oo aan salaamo waxay yiraahdeen war adiga miya wiilka af Soomaali yaqaan markaasaan iri aniga nin 56 jir ah oo awoo ah oo wiilka af Soomaali yaqaan loo yeerayo waan ka yaabay ninka af Soomaaliga ma dhahdid aniga wiil yar mihiid waa ogahay dadka Mareykanka waxay qiimeeyaan aruurtinimo iyo dhalinyaronimo laakiin aniga sida Soomaali ah waa ogahay dadka dacweyn ayaa maskax weyn sida mahmaada nin 20 jir intuu geedka boodo talaka boodo marka dadka waxa uu sheegay kan ciiraaneed ma aha aniga nin weynaan ahay marka wax kasta waqti haboon buu leeyahay waxaan xusuustay markaan Minneapolis soo guurnay 1999 bay ahayd oo isbitaalka Hennepin waxaan ka shaqeynayay Dr. Usman Harare oo nin aan ah oo marka waqtigaas ma jirin kalkaaliyo badan oo Soomaali ah laakiin hadda way tir badnaayeen taas waa loo baahan yahay waana wax wanaagsan meel kasta aad tagaysaa waa arkaysaa ama daktaro Soomaali ama kalkaaliyo ama sheybaar ama shaqo kasta la arkayo Soomaali baa qabsanaya taas loo baahan yahay markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Buulburti ay sameynayaan aad baan u faraxsanahay runtii maxaa yeelay waa ogahay shaqadan waa arrin ka badan hal qof runtii sidii aan waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqeynayay xamar ayaga way heesayeen markay shaqeynayeen waxay yiraahdeen
قرآن شو أرورتي بلا واجيتا قرآن شو أرورتي بلا واجيتا ساس بيرابي أو وانا أركي جريري قرآن شو بلا جيدا يا إنده هيك واقع أركي وانا رون وسيدا فرق كليا فول ما دقضو وارونتا marka waqtiga gaabna oo 3 sano oo aan reer Buulay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii wayna martiqaadayeen oo waa isla shaqaynay waxaan maqlay daraad rufaa baa ii sheegay oo malasadii oo muxubbo hare ee wili way joogtaa Buulabarti waan ka yaabay waa badan baa isla shaqayn jirnay marka shaab badan baan cabnay aad shaab badan baan cabnay iyo hal mar ana geel baan cabay mar laba ma cabayo waa ogahay idinku waxaad qabtiin caafimaad inay tahay laakiin inagoo shuban bis waa dib marka in kasto Buulabarti waa magaalo yar waa dadka oo reer Buulabarti ah waa dad wanaagsan oo caan ah oo qof kasta waxay faanayaan magaaladoodii ma fahamtay marka anigana iyo in kasta aysan ahayn hal qabiil ah dadka si nabad bay isla noolaayeen runtii saas baa arki jiray marmar aad baan ugu xumahay markaan arkay dadka Mareykanka ayagoo fahmi iskhilaaf baa jira marmar dadka Mareykanka iyo dadka Soomaali anigana markasta dad Mareykan waxa uu sheegayaa dadka Soomaalida waa sida idinku tiin waxay dadaalayaan mustaqbalka caruurtoodii nabad bay rabaan horta ogow diintooda aad bay u qiimeeyaan laakiin waxay yihiin dad gacmo furan aad iyo aad marka aniga ahaan geedi ahaan iyo xaaskayga Shamso wax badan baan ka faa'iideysanay dhaqanka iyo ilmiga Soomaali oo dhalinyaro kasta oo Soomaali ah waxa uu talinaya bal afkiina hooyo baro sababtoo wax badan haddii aad turjuntid ma fahmaysid xagga ilmiga Soomaali marmar anigana waxa uu sheegay tartiib waa baran kartaan laakiin marmar waxa dhacda dadka waalidkooda waxay yiraahdeen wargeediyo abdiyo adiga doqona tahay ma si fiican ma baratid abdiga ka fiican marka kaas loo baahno waxa la rabaa inaad dhiirigelisid sababtoo sida dadka Soomaali ay dhiirigeliyeen xamar markaan nimid waxaan niri subax wanaagsan oo dadka waxay igu yiraahdeen ma taqaan war afkoodana baratee nin fiican aad tahay marka dheergeli caruurtii way baran doonaan oo marmar maadaama Dr. Cusmaan Isaaq dadka qaar waxay u mareeyeen inaan ahay barwaani marka marmar mahma barwaani waan tuuray mid oo la dhaho sidaad u baranaysaa lug marow لازم لامي يكون قاعدة مركا أحمد علي حيلي الله ونهرستو صار Buulabarti isagoo macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali runtii markaad qof ajnabi tahay markaad meel tagtid adiga wax ma taqaani runtii ma fahmi kartid haddii qof ku sharaxaya haddii kale wax ma fahmaysid marka aad iyo aad macallin buu noo ahaa oo mar labadeena waa isla soconay Buulabarti nin baa noo soo yeeray wuxuu yiri war Axmedow war ninkan Mareykanka hadduu af Soomaali hadduu yaqaan hadalkan ha fasiro markaas waxaan isiri waa ogahay wuxuu dhaxi doona cagta wax ka day waa sahal waay markaas wuxuu yiri ma taqaan wuxuu yiri okay wargeediyo dageyso kan ka fasir
وحانا أورن وان إري أورن مايو وحان إري ما أورن مايو إيغو يرى نكيري واتري وحانا أورن آن إري ويري حيرادو ووريري أو مركا أحمد وحاوده لها محمدي أبو كان يريق إليو كان وين يقصدي مركا لكن السجا ودي ذا إنه يفسره وحيري ورنيه وشيء جدي مركله لكن ترتيب وشيء مركا ترتيب وإيشيء هذا نوافسره شن سنة كهر إسو أفريقيا وتجي أو صاحب دي سبوس سلامي أو هستي أيو نقول دردارمي هستي وهس عن لكن هستان مد أو ماركتي بريحان أو كلمة لكن واسدتان Somali dehini hadi eisina hate Somali dehini hadi eisina hate Wasuba wanaksane alenkana salama Nin lagu sahdo hasehan hilbasita hasehan Nin lagu sahdo hasehan hilbasita hasehan hasehan sojedo si wenu fejigmo marka heeskanu noo baray marka heesahan iyo waxaan markaa maqlo aniga ma fahmayo laakiin isagu tartiib wii fasiray walaalayaalow isbitaalka Buuluburti oo sanayin badan ka hor la bilaqaystay oo eber laga digay in dib u dhistaan waa wax wanaagsan runtii waxaan xusuustay sheeko oo nin gabadhiisa aad bay u jiraneed ayaa Ciise Masiix u yimid oo bariyay inuu gurigiisa tago laakiin inta ay soconayeen nin kale oo guriga ka yimid wuxuu yiri macalinka hadhimin gabartaada ay dhimatay Ciise wuxuu yiri laakiin ha baqin way reesan doontaa markay guriga gaareen waxay arkeen dadka barooranayeen laakiin Ciise wuxuu yiri ha ooyanina gabartii ma dhiman way hurdaa guriga buu galay gacanta gabartii uu taabtay isla markiiba ruuxi bay ku soo noqotay way fadhiistay marka aniga wax kasta waqti uu leeyahay waa sidii heesta Soomaali kale oo maar hore markaad Soomaali joogay Ahmed uu noo baray waa geed harkii waa labada gelin godorkii waa dada kala guurey balgaro soo hadalkaas sida goodir xergale u goohay golaheena sharafta leh u goohay ma ku gaaray hadal go'asho gulagu ma ware gogo sane hoga anta ho marka hadalkayga waa si gabagabeynaya waxa la dhahaa hadal badan haan ma buushee runta in la sheego ay fiican tahay aniga runtii ma u maleynay inaan Buuluburti aadi doono laakiin runtii ilaah waxaan ka baryayaa inuu idin garab galo oo inuu muradkiina sahalo nabad kaliya